السلام عليكم walaaladaydi qaaliga ahaayo iska warrama yaa maanta vlog baan duubayaa waa sabti maanta waxaan ku socdaa waalidooyin caruur autistic ka haysta oonu ku wada jirno group autism support group ayaan maanta ku socdaa waxaan is aragnaa bishii mar amba labadii biloodba mar ilaan dadku waa iska mashquul caruuray wada haystaan waa iska xaas iyo family marka maanta waxaan u duubayaa vlogan waxaan doonaya inaan ka hadlo faa'iidooyinka laga helayo gatheringa maxaan ku sheegaa af Soomaali faa'iidooyinka laga helayo dadkan isku imanaya bulshada iyo marka la isa siinayo caawitaan hadduu midkiinba mid warwarayo amba wax sheeganayo amba warwar ku jiro amba qofu maad aragtay su'aal uu hayo leeyahay jawaab baan u baahanahay whatsapp groupka u soo dirayo waa aad iyo aad bay muhiim u tahay inuu qof walbaba hadduu dhibaato ku jiro amba kaba soo qaad ilmaha kaa xanuunsanaya amba waxbaad ka shaqaynaysaa amba mental healthkaaga caafimaadka maskaxda amba wuxuun aad bay muhiim u tahay inaad raadsatid caawitaan ha noqoto therapy ha noqoto familigaagood aad wax weydiisidood ood ka raadsatid caawitaan ha noqoto saaxiib ha noqoto urur sida ayadan oo kale bulshad caruur isku wada mid oo ilmo kastaba caruuro autistic dad haysta oo isku aqli celinaya aad iyo aad bay muhiim u tahay marka bulshada iyo dadka groupka iyo dadka isku imanaya ay jamaacadu waa sunne khayr bay leedahay wallaahi that's why marka salaada la tukanayo jamaca loogu tukadaa oo ugu khayr badan tahay dadku markay isku yimaadaan khayrkeeda leedahay waayo qof kelidii socda ma fiicna marka intaa umaan doonay inaan nila wadaago haddaad warwar badan ku jirtaan keligiin meel ha fadhiisanina wallaahida aniga bilowgii markii inantayda lagu sheegay autismiga aqalkuun baan de ku hayn jiray halkaa umaan maaragtay fadhiyi jiray fikir shaydaankaa markaa kula fikiraya kelinimadu ma fiicna inaad groupskeesha raadsatid ood caawitaan raadsatid ood baxdid ood dadka kale la hadashid waayo dadkii kale wixii way kula fahmayaan iyagiina way ku jiraan same situation bay ku jiraan markaasaad arkaysaa hooyo kula wadaagaysaa waxa iyaduna hore u aragtay ood adiguna soo aragtay markaasaad odhanaysaa anu saasaan sameeyey iyaduna saasaan sameeyey ma saasaad samaysay haye bal kaasaan tijaabin wallaahi anigoo moodaya inaan dadka wax u soo biirinayo waayo imika inantaydu aniga waa 12 jir anigoo moodaya inaan dadka wax u soo biirinayo ayaa wallaahi anigaa wax lay biiriyaaba marka dadkiiba wax ka baranaysaa wallaahi adigina dadkiiba wax u biirinaysaa adigina dadkiiba wax ka baranaysaa aad bay bulshadu wanaagsan tahay marka intaasaan nila wadaagay insha allah markaan meesha tago waxaanu tegaynaa maanta meel laga cunteeyo hadduu ilaadhado waan niisoo duubay
iminkaan kasoo galay cashadii habliga autismka wallahi si fiican bay noogu dhacday hablo badan baa imid wax badan baan isla wadaagnay carruurtan ka sheekaysanay waxaan ka sheekaysanay daayatka iskoolada fitaminada wax walba wallahi maasha allah cisho qurux badan bay ahayd aad iyo aad marka imikadan aan soo galo waan daalanaho xabeeb baabay ahay sabasaan u qayliyo u sheekeyni marka halkaasaan kusoo gabagabeynaya videoga please like iyo commentska igu dhufta iyo subscribe-ka insha allah way noo mardhow asalaamu calaykum